waan idin salaamayaa. Magacaygu waa Ibraahim Aadam. kusoo dhawow channelkayga. waxaan halkan kusoo gudbinaa mowduucyo ku saabsan dhaqaalaha, horumarinta nafta, dhiirigelinno iyo taariikho si dhab ah u dhacay. sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa mowduucyo ka duwan intaasi mustaqbalka dhow. soo dhawow mar kale. haddii aad ka hesho muuqaalada aan soo gudbinayno, fadlan nagu soo biir oo kanaalka rukumo adigoo subscribe noo saaraya. sidoo kale muuqaalada aan soo gudbinno like buttonka noo taabo. waad mahadsan tahay. waxaan bartay in hadal gaaban oo idin dhex mara qof xigmad badan ama dood yar ay u dhiganto bil duruusteed oo kale ama bil inaad wax baranaysay oo kale. waxaan bartay in aysan muhiim ahayn maxaad hadda haysaa, laakiin ay muhiim tahay xagee daqiiqadan kadib rabtaa inaad gaartid. waxaan bartay in qofku u khayr badan tahay ama u wanaagsan tahay in uu ahaado diidiin ku socda dariiqa toosan intii uu ahaan lahaa deero ku socota dariiq khaldan. waxaan bartay in furaha khasaaradu yahay in qofku uu isku dayo in uu raaligeliyo cid kasta. waxaan bartay in camalka wanaagsani uu aad ugu fiican yahay hadal wanaagsan oo kaliya. waxaan bartay in ay badan yihiin dadka hela waanooyin badan laakiin ay yar yihiin inta ku dhaqanta. waxaan bartay in khasaaradu aysan ceeb ahayn laakiin ay ceeb tahay in aan waxba la tijaabinin oo hal wado lagu taagnaado. waxaan bartay in ay jiraan laba nooc oo dadka ah. waa midka koowaade dad u dabaalanaya meesha uu markab ku taagan yahay. waa midka labaade kuwani waa kuwa taagan oo sugaya in uu markabku iyaga xaggooda usoo dhaqaaqo. waxaan bartay in qofka uusan hoogin ama dhibaatoonin haddii uu khasaaro, laakiin se uu khasaaro markii uu joojiyo dadaalkiisa. waxaan bartay in qofka guusha gaaraa uu yahay kan sabirka iyo dulqaadka badan. sidoo kale waxaan bartay in hubka ugu weyn ee uu qofka helaa uu yahay samirka iyo waqtiga. waxaan bartay in marka aad qoslaysid uu adduunka oo dhammi kula qoslayo, laakiin markii aad oynaysid uusan kula oynaynin oo ay ku keli tahay. waxaan bartay in farqi weyn u dhaxeeyo tijaabinta badan iyo ka qoosashada. waxaan bartay in dareenka wanaagsani uu yahay kii naftaadu ku qanacsan tahay adigoo ogsoon waxa aad samaysay in wanaag ahaayeen. adduunka oo dhanna ha kula culoobe. waxaan bartay in wax kasta oo aan u aragno in ay weyn yihiin ama qiimo sare ay leeyihiin oo adduunka yaala ay markii hore ku bilowdeen fikrad yar kana bilowdeen wax aad u yar. waxaan jeclaystay in aan intaas idinla wadaago. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan nagu soo biir oo kanaalka subscribe noo saar. sidoo kale muuqaalkan haddii aad ka hesho like buttonka noo taabo. waxaan ku leeyahay nolosha ha ka quusanin, kuna raaxayso noloshaada. Peace.